يبصوا أنا هرتكم هو قرار لو ملهد ناس رحتوا عديها أو قضب لكن وحن ربعنا الدين تقلب حنا سين عرفت أصلا لا أنا سبحان الله Soomaali maanta heerkaas ay maraysaa daba xaaladda maanta ku sugan nabad dareemaysaa baan malaynaya qabiil kufaan qabiil heer wixii na gaarsiiyay inuu diintii naga fogeeyo in uu dadnimadii naga fogeeyo bal ee imakana inuu dhaqankii bay naga fogeeyo labadan inay waaweyn waxay meesha la yimaadeen ay waliba dhagaha Soomaaliyeed ugu ridayaan dhaqan xumadooda iyagoo waliba isku faanaya iskuna sheegaya in midkoodu midka kale u faraxumeeyay kama aha isfadeexin iyaga Soomaali hadaaq la yeelato kama aha iyaga isfadeexin bal ay waxay doonayaan Soomaalida inay dhaqan habaabiyaano waxan wax caadi ah yihiin inay Soomaalida ka dhaadhiciyaan waa dad mashruuc soo qaatay doonayeen inay ku faafiyaan ummadeena bulshadeena Soomaaliyeed inay ku dhaqan habaabiyaan dhaqamada qowmuludnimada dhibaatooyinka waliba in hareeriyay waxa kamid ah sidii Soomaali dhaqankeeda loo habaabin lahaa diintana looga saari lahaa Soomaali si loo heli lahaa Soomaali Kristana Soomaali Almaaniya iyo Soomaali Shiiciya haddii ay maanta Soomaali baraarugu weydo bari ka maalin ayay garan doontaa dhibaatooyinka ku soo aafale culumooyinkii way daaleen sidii bulshadeena Soomaaliyeed u wacdinayeen ay markasta xaq ugu sheegayeen bal ay Soomaalidu iska dhaga tireeno waxay culumadii ka doorbideen oo ka jeclaadeen qabyaalad nin walba maanta yani wuxuu gunta u xidhanaya amba ku faanaya amba yaanu baraha bulshada u soo fariisanaya reer hebel isagoo ku faanaya amba duraya qabiil kale Soomaali maanta ciqaabta ku socota isma dareensana nimanka maanta arkaysan khaniisnimada iyo waxa yani magaran safar xumeynta sheegay ma aha isaaben iyagu isaabenayaan bal ay waxay doonayeen in ay Soomaalida u soo gudbiyaan fariin ah waxa waa la sameeyaa iyadii kuna sameeyay laakiin Ilaahay baan ka magan galnay Soomaaliya baraaruga